أول مركي قبل السكول كبحضه شقيرات سجرت هذا لكن شغال لماذا بحاول ما ليس إنك سوبر جيدو dadka badankoodu waxay aaminsan yihiin gabar wax baratay shaqo ay qabato ma shaqo saalon shaqo waxay u aaminsan yihiin low value inay tahay marka aragtiin caan badan oo soo gelinayno intaan caankeena meesha joogta ka badan because boqolaal qof la saafgareeyay laba basaxaane boqolaalka kale raali kama ayna duubto halka qof oo caan ka labada qof oo caan ka raali bay ka yihiin intaan duubta inaan soo dhigto and that's part of business gabadha ma cadaysiin soo ma yana cadayna boqol jeer ali wadaya people approach me حمر دبي جسوا approach كريه مجا نسي فإذا كسيننا أنت سو percentage القوة قلنا هي just أنكوش قيسنو هذا ويسمو ده محسمينا الناراتيفز قلبنا دليل هذا كور لي سو جدي سمان سجو وهي مركز هاير جريني سو وحكوا هاير جريس قبيل ترتيستك تاس مسهل نوع وبعن تاي العقد بدن minimum 5 million ملوين دا فريسو هنا هي ستو وماشي كوكور حيسو إن أسلي كيروين كذا وقالي meelaha qaarkood dadka sanad ay ka shubtaan ay remember marka shirika furaay 1 year in advance ay ga shubtay one outfit waxaan ugu yar 70,000 for the lady Bobola games ka joog for the lady 70,000 halka outfits oo kugu jiro wiilka it goes up to 140,000 salu kuma jiro cilaankii makeup ku jiraan cilaanka kugu jiro makeup kugu jiro timiya kugu jiro and facials kugu jiro jirdhaqiya kugu like literally everything yani waxaan ugu imaado gabdho kareema khaldan intay marsadeen maqaarkii dhintay finan wareeriyeen haara meel walba yaalaan qaarkood dhiiga daamanka waxaa u malaynaya dhiig inuu soo tifqirado intii wax khaldan loo mariyey 2026 ganacsiga iyo social media they go hand in hand xarunta kood maxaa xaga fursay Parklands Singapore way u socon weyd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا قيب كلا أو حيسله أو مهدي شو قيب سنة وحكمي تباشك هراء أسي السعودية امتحناها وأن ديرة كسريني دومركا سوماليات كوجيرا كان عسيقة بس بعد الصورة في وحن صور سنة ماما كعنتي هذا فريد وحرفت حق مرتي دركة مرتي درعيها لكركرينا يقوياشة يدورشها لكرينا يعني صور سنة تنا waxaan noqonaysaa qaybtii labaad waxaan nasiib u yeelanay maanta inaan la fariisano wana casharna ka qaadano gabdhaha aan dhaha gabdhaha ugu fircoon xagga ama ugu magac dheer ama muuqaal dheer xagga ganacsiyada Nairobi waxaan nasiib u yeelanay inaan la kulanna gabar abti u ahay taas lama qaranayso maya in abti ku ahay it's a privilege in abti noqoto ha abti cusub walakin لكن صل بار واتقرن عدي لا يا ما أقرن good friends of the mom قبل أبتي وها مانتان ورسنا يا ورسنا فاطمة علي فاطمة كده أبتي وسدو مهدي شو مهدي سنة أبتي هاي وهي تاعي شرف هنا نقصهم مقدم مهدي شو ما شاء الله إن وهي شرف كليسي تاعي إنه ورستو أبتي عبد النور تيم كاغ behind the scenes فرحانيو ما شاء الله تبارك الله مركات بومها سنتين markaan soo bilaabayna barnaamijkan harabni taxaneen aan ka dhigno women in business Soomaalida dumarka oo ku jira ganacsiga dadka waxa ka mid tahay first ma list qof walba wareystaan dhawrniyo gabdhaha dumarka Soomaaliyeed ee ganacsiga ku jira yaa ku haboon inaan wareysano qof walba wuxuu ku dhahay horta Queendom ka bilaw kadib waxa kala yimaan why Queendom maxaa qabatiin maxaana ku soo why is everyone talking about you والله هرتا إن I don't know why they all talk about me. لكن وحندي كرائن واحد سمين سامينتي سلاركو وهي بدلاه. واحد سكيمة تماها. إن إنكستون ددالني وندال كذا كأني أنا بيتين كيا. هذا نوع واحد إلهي نوع كسبي ونسيه. وحندي كرا وهذه إلهي نسيه. إن مجعي ومجعوين نقطة وملوا البلد هذا الحياة. ما شاء الله. حق بيتين كوين. قفن جرم. Queendom وإسكا هواينك سومالي بمركا عرقتو قبل سومالي ده محكو صدق قروح إن نظافات واحد بدن بقو صدق أصلا كان في رجولية كان معنيه مركا Queendom مرتو حواي كمباني أنا أساسا لابد كوني وسجالي طبنكي إن وحكي رجلي حافظة Parklands
way shaqayn weysay first branch first branch way shaqayn weysay ha marka waan soo way noo xiray sheegi doontaa waxay u shaqayn weysay ha waan soo cashar ka xiray baranay waxaan u soo guuray Islii xaafadeenan Soomaalida yes marka 2020 February baan xarig jaray oo Islii ka xarig jaray alxamdulillah si qurux badan buu igu hirgalay laba xarumood oo kale way dhalay waaweyn maalinkan bilaabay 6 shaqaalan haystay oo ila bilaabay I think laba Soomaali ah ma saddex madow iyo saddex Soomaali ani markii lagu daro 7 hadda alxamdulillah boqol iyo konton bay kor u dhaafeen wow 115 please Soomaali ma u badan Soomaalida waa boqolkiiba 40 konton iska dheh shaqada qabteen xirfadeeda ma garanayna xirfadihii baa kala ah qaybta markii la dhaho makeup-ka Soomaalida ku fiican boqolkiiba boqol gabdhaha ka shaqeeya waa Soomaali markii la dhaho qaybta oo beauty markii lagu dhaho waxay u kala baxaysaa maqaarka nadiifintiisa daryeelkiisa qurxintiisa sax waxaa noogu jiro gabdho qaarkood oo xataa certified nurses estheticians baa ku jiro marka kuwaas Soomaali kuma jiraan waa gabdho oo wadanka Kenya u dhashay qabiilada kale oo Kenya la dego markii lagu dhaho cilaanka Soomaali waa boqolkiiba boqol haddii lagu dhaho dhinaca kale oo aad qurxinta generalka aroosaha soo dhaweynta maadaama macaamiishana boqolkiiba 99 dad Soomaali ku hadlayeen customer care-ka iyo arooska soo dhaweyntiisa qurxintiisa ayagana Soomaali baa u badan laakiin generally mix waa 50-50 Somalis iyo non-Somalis service-ka qabateen waxaa ka mid ah service-kan qabano services-keena way badan yihiin waa iska regular qurxinta regular haddii cilaan noqoto haddii noqoto makeup haddii noqoto maqaarka qurxintiisa daweyntiisa dad baa haaro wareeriyey dad baa finan wareeriyey dad baa age-ka la dagaalamayo marka wixii oo dhanba meesha waan haynaa haddii regular noqoto iyo haddii bridal noqoto sanadkii hadda oo la soo dhaafay oo 2025ka waxaan ku soo kordhinay fitamiinada oo xididka laga qaato waxaan ku soo kordhinay services for grooms wiilasha aroosyada qurxintooda labiskooda iyo meesha ay ka bixi lahaayeen oo ayagana loo diyaariyay anaga u labisayno marka services-keena generally waa regular iyo bridal services oo qurxinta ku saabsan iyo daweynta maqaarka gabdha ma cadaysiin soo maya ma cadayno laakiin midabka ilaahay ku siiyay baan ifinaa waan qurxinaa bariyahan markaa jidka marto boqolkiiba boqolkiiba ku dhahaa 90 haddii lagu dhahaa hadda 10 kun oo shilin qaado oo lagu dhahaa qof walba madowsi boqolkiiba lacagta wala soo noqonay inaa la noqoto badan tahay lacag baa bidin badbaadin hadday saas tahay maxaa dhacay what's happening dadkii madow ma bariyahan lama dhalamiya dad madow gabdho madow lama dhalamiya wiil madow arag fara badan especially hadda Nairobi markaad qurbaha joogto Mareykanka Europe iyo gabdho madow badan waan arkay laakiin Sliimka joogto especially BBS bidax fiiri wax cad midig fiiri wax waan weeraraysan abtiyo si amal dadkii madow intay garan wallahi horta midabkan horta mid ilaahay bixiyay waaye hadaanta markii la dhaho waxaan si daray horta sanadkan kii naturalka ahaa kii isku dardarka ahaa in la kala garan karin ragga guurdoonka badankood hadda waxay ku wareersan yihiin gabadha cadeed oo naturalka ahayd iyo midii is cadeysay cunug madow ku dhalay hadda madowdahay qasab cunug madow iska imaan muuqda gaasada adoo cadeed maxaa ku wareersay loo kala gartaa kuwa naturalka ku kale wallahi si lagu kala garan kara ma laha hadda adduunka advanced buu noqday awal wax badan baa la sheegi jiray laakiin hadda aniga ku wareernay idinka iska daayay marka waxa waaye qof walba dooqiisa loo daayay ma maqli jirtay ani markay ii imaadaan waxaan dadka ma cadeeyay laakiin hadda cadaan rabtiin magaalada way buuxdaa wixii kala qurxinay u imaada waxyaalaha okay maybe it's not your feel laakiin cadil saadayna waxa dhibaatooyinka aad aragtay maxaa weeye oo dumarka ku aragtay side effects wallahi horta side effects ka dhakhtarin badan oo ka hadleen dhakhaatiirta ka hadleen markii laga soo tago xarumaheena waxaa noogu imaado gabdho kareema khaldan intay marsadeen maqaarkii dhintay finan wareeriyeen haara meel walba yaalaan qaarkood dhiiga daamanka waxaa u malaynaya dhiig inuu soo tifqirado intii wax khaldan loo mariyey marka side effect haddii la dhaho waa la tirin inta muuqatay intaana muuqanin baaba kasii badanba laakiin inta noo muuqato jirkii qayir maayo because waxaan la marsanayo gabdhaha inta badan maybe ma fahansano waa steroids
steroids ka marka hore uu kula shaqeynay kor buu kuu qaaday uu ku qurxinay but with time uu kugu soo noqonay midabkii ilaahay ku siiyey buu sii dilay wad khayarmay marka dhibka ugu weyn kolley ku qabaan maqaarkii uu dilmo oo long term effectkii markii lagu wado difaaciisa iska yaraado haaro finan gaduud dhibaato badan laakiin saasay tahay it's a $1 billion industry sidii haddaad tagto ganacsiyada ugu fiican waaye suuq waxaa tagaysaa leen loogu jiro oo ilaa jaranjarada iyo meel walba la taagan yahay markaad fiiriso wax kale lama raadinayo caddaan markaad fiirisana dee I think bulshada raggiinana kaalin weyn baa ka qaadataan because gabadhii cad ya wax madow marmo wax madow ma rabtaane gabdhaha cadcadda inaad kuwii madoobaanaysa cadda idinka ku kalifaayo kuwii caddaanta u dhashayna inaad ka shakisaan oo dhahdaan waad iscaddaysay baa meesha imaanayso marka raggana kaalin weyn bay ka qaateen laakiin alxamdulilah hadda jiilka yarar oo soo kacayo gabdhaha wax bartay badankood dad maarin bay isaga badan yihiin kuwii ilaahay caddaan u dhaliyeyna de ayagana waa maasha allah waxaan la yaabay wixii chemical horta markaa fiiriso every chemical componentkiisu qaba arkaysa patient intii la qaado kana lagu miiraya waa different markaasaa sida loo qasay kii kale qofka qasayana qof hataa magaciisa qori karaan maaha educated ma yes horta qof educated wuxuu sameey maaha because haddaad cilmi adduun leedahay kanaaqara asaga waaba ognahay where the line draws meesha ay diinta ka taaganta waa ognahay cilmi adduun haddaa og tahay kolley ama aa baratay kuma degdegaysid inaad dad chemical isku qasqasto aad dadka ka iibiso mise naftaada u marsato laakiin bulshada baahida ka jirto markaa aragto oo adigana entrepreneur tahay oo lacag rabto guriga iska jooga caafimaad dadka soo qofka jirkiisa saa oo kale u dhintay wax ma ka qabatiin xaruntiin waa laga qabtaa waan ka qabanaa some of the facials aan sameeyna mid waxaa ku jira la microneedling irbada yar oo waxaa waye wejiga lagu duraayo markii lagu duraayo oo lagu duro dead cellkii buu soo renew garaynay but maaha maanta iyo berri waxaad arkayso wax qabadkiisa up to 12 weeks u baahan tahay inaad aragto wuxuu kuu qabanayo maqaarkii hore oo dhintay inuu tartiib cells cusub ku samaysmo soo noolaado kii hore uu dhintay because maqaarkeena mar walba cellska way kasii dhintaan kuwii cusub abuurmo marka wixiina inaad joojiso oo wixii lagula taliya aad samayso waay marka waan daweynaa laakiin xogo way adag tahay qof dhowr iyo 10 sano soo marsanaya caddayso maqaarkiisa inaad ku daweyso bil 2 iyo 3 waqti badan bay u baahan tahay intaad la soo halay inteeda kale u baahan tahay in la sameeyo qarash kala dana qarash kale yes hal iska dhaaf caddaynta madowga anaga ku rabnay ma rabtiina farxaan rabaa ilaahay ku raba laakiin ilaahay idinku aadiyo farxaan cali muxtaar uu rabaa waan ogahay wixii madow farxaana soo wacan wixii cadna anagana soo wacan kaftan waa intaas barnaamijka maanta waxaan u soo qaadanay xagga ganacsiga inaan ka fiirino sifa dad badan oo maaragtay ku hadminaya inay ganacsiyo furtaan especially Nairobi hadda oo kale inay maaragtay maaragtay 1 or 2 things ay ka bartaan xarunta koowaad maxaa ka furtay Parklands Singapore way u socon weyday location 2019 maybe it was the location Soomaali badan ma leen Parklands waxaa kaloo dhihi karaa waagaas lima garanayn hadda social media any platform oo tagto Queendom haddaad qorto waad arkaysaa marka waxaan isleeyahay waagaas social media kuma jirin naturally ama shy person until 2-3 years ago kamerada waa ka dhuuman jiray wax kale ka aaminsanaa marka waagaas social media accounts ma qabin haysiin badan ma samayn jirin businesskii sida la rabo inaan dadka ugu muujiyo uguma muujinin marka because of the location because of lack of exposure wax badan baa iska jiray way shaqeyn weysa laakiin ma niyad jabin just locationkii aan bedeshay meel kale taa u soo guuray marka alxamdulillah aan expect so which means location iyo ganacsiga waa arrin aan shaqo furayso waa inaad ka fiirsato waa inaad si fiican u baarto waxaan maxaa kala soo qiimi karo dadkan ku iman karaan accessibility-geeda say tahay because waaga 6th floor daba ku yaalan ka furtay 6th floor you can imagine visibility badan ma lahayn hadda laakiin by the road side ban ka furay my first branch jidka markaa maraysa boorka indhaha kaa gelaayo Soomaali stairs la fuulay mar rabaan stairs mar rabaan anaga exercise ma bajeclin waa aragtay gabdhaheena cayilisay balaayina cunayaan soo markin gabar isbuurinayso haddaa dhahdo stairs soo fuul waa qarashkii baad dilaysaa 6th floor haddana si 6th floor install elevator ay jiray laakiin haddana it was not advisable inaan ka furo laakiin lessons aan ka bartay ma give up garaynin I moved on to the next location so the best location was Slee
that's why isli laba branch baan ku qabaa one in Ushirika another one in 12th Street because waxaan isla labada dhinac way kala fog yihiin different clientele si aan ugu target gareyno waxaa kaloo ka dhawaajisay xagga social media-ga inuu wax badan ka caawiyo dad badan waxaa arkay ganacsi furanaya waana nafteeda markaan arkaan dhahay social media ku jirta ay dhahayaan kuma jirno like they don't post anything wax ma soo post garayaan social media qayb sidee ka qaadanaysaa ganacsiga wallahi horta 2026 ganacsiga iyo social media they go hand in hand haddaad maanta ka soo qaad koob yar galaas biyo lagu cabaadad iibinayso guri dhakadiis haddaad la fuusho social media aad intaad account u furto you market it yes waa lagugu imaanaa صح waa lagaa gadani laakiin wider market coverage waad sameyn laakiin sidii hore the old way aan u samaysan jirnay businesska haddii intaad businesses ka furto qofkii ku soo hormara mise qofkii ku imaada le ay noqoto word of mouth in isku gaarsiiyo waa dhibkeeda leedahay adduunka uu horumaray hadda maanta gurigay intaana ka bixin wax markaan raadsan rabo normally waxaan geliyaa Google waxaas inta igu dhow ka heli karaa the best spots on ka heli karo then it guides you guide kareena marka inaad social media haddaad business furanayso ka dhigto kaalin weyn oo qayb ka mid ah businesska waa muhiim haddii oo if you make it or social media aad xoog saarto chances businesskaaga inuu ka caway badan tahay kasoo gurigaaga iska fadhiya maanta laga yaabo in aad adeegin rabtid adeegi aad rabtay adoo isku scroll gareynaya TikTok baa laga yaabaa qof kale intuu meel ka soo geliyo inaad fadhigaaga ku aragtay page-kiga gudaha u sii galay waxaadan rabin oo kale markaa inaad gadato laakiin u baahneed aa meesha ku arkay then it tempts you inaad wixii gadato oo raadiso oo sometimes lugaha ugu tagto isgaada maybe there's variety balan soo arko jobarta businesska badan waxaa loo aqaanay inay ragga ay subiyaan laakiin baryahan xalay waxaan soo maray exhibition ku dhacay Diamond waa meesha Broadway okay Broadwalk every stall gabadha fadhida baryahan dumarka aad bay maartay u soo badanayaan business which is very encouraging what are some of the caqabooyinka kala kulanto as a woman in business caqabooyinka badan oo kala kulantiin marka ganacsi ku jirto on personal experience horta business gabdhaha hadda ma soo gelin ani gaarisan ka imaaday suuq mugdi meel la dhaho irid markaa ka gasho iridda ilaa dhammaadka maamooyin baa fadhin jireen hadday ambooga noqoto hadday dhar noqoto hadday like literally wixii uu economiga ku dhaqdhaqaaqaya dad ka shaqaysto maamooyin bay ahaayeen kaba soo tagba Nairobi haddana imo even back in the days when I was growing up dadka businesska ugu badan samayn jiray dumar ay ahaayeen laakiin dumarka hadda joogo waxa uga duwanayo hooyooyinkeen hadda social media ay imaaday gabdhihii hooyooyinka waxa laga yaabaa inay iskaga qanacsanayaan guriga inay fadhiyaan oo boqolkiiba maybe 40 mise 30 kaliya shaqaysa waagaas laakiin shaqada intaas berigaas ayaga way ku banaayeen marka horta ganacsiga waxa hadda gabdhaha ay bilaabeen maaha waxay hore u soo samayn jireen laakiin sanadkan aad bay u muuqdaan because gabdhaha waxa arkaysa educated qaarkood university level gaareen awal markay gabadha iskuul ka baxdo shaqo raadsan jirtay hadda laakiin shaqaalinimada waxa u malaysaa in laga soo horjeedo qof walba wuxuu ku leeyahay meel yaroo waqtigan rabana furi karo waqtigan rabana xiri karo baan ku qanacsan maybe that's why I arkaysiin gabdho badan oo bannaankii jooga oo shaqaysanayo marka business-na kolley ani ahaan Faaduma ahaan ma dhihi kari waxaa waaye wax cusub oo maanta challenge badan aan ka arki karo because aniga waan ku soo koray ani hooyadii shaqaysan jirtay habaryartay familka waaba taqaanaabo ilaa hadday shaqaysaa marka waxay ahayd hore intaan u soo arkay isii dhiirigeliyay inaan anigana fariisanin oo dhaxda xirto laakiin challenges ugu weyn oo helna waxay tahay hadda ka soo qaad ganacsigan sameeyay aniga dadka badankood waxay aaminsan yihiin gabar wax baratay shaqo ay qabato ma shaqo saalon waxaan xasuustaa dadka dhacaan oo akhrisan way ka saalon soo barto exactly hatta dadka wax bartay kelime ah dadka oo maaragtay perform gareynin iskuulka markii la dhiganayay oo natiijo fiican ka keenin waxa la aaminsan yahay shaqada maaragtay dukaanka iyo saalonka iyo yani people consider it shaqo waxay u aaminsan yihiin low value inay tahay but the reality is different wadankan joogno opportunities oo shaqada lagu helo waa very limited jaamacad soo bogan oo shaqalaad qof walbana ma heli karo godfather baa u baahan tahay connections u baahan tahay so by the time aad shaqo laga yaabo aad ku qanacday inaad hesho it will be too late and draining marka contrary to that gabdhaha hadda shaqaysto marka la interact garayso waraysato waxa way dad excel garay academically
ومركز فيرسو نتيجوين كودي وحبرشة إلا هيركي كجارين مالها مرايان dadka ugu sarsareeyay waa صح but because of how the country is ma fariisanin ومجتوما shaqadayga abuurtay shaqa abuurasan hadda for example anigoo kale haddaan dhihi lahaa shaqa raadsani maybe waxaa laga yaabaa inaan dawlad shaqo ka heli lahaa beri baan NGO soo shaqaynaya $2,000 lagu siiye meel baad fadhidaa 30 maalmood iyo waiting there comfortably laga yaabaa inaa ilmahaaga waqti u heli karin waxaa laga yaabaa in xiriiri badan inuu jiro dawa dareemi kartaa dumar markaa baahiyo badan iska jiro hooyaa tahay in wax badan oo balance u baahan jiro maroo hadaa tahayna kaba sii daranba marka business aleeda marka abuurato flexibility gaas hele waqtiga rabta businesskaaga u soo kac waqtiga rabta tag waqtiga rabta ka maqno at the comfort of your home ka shaqayso because adduunka online buu iska noqday kaamirooyin ku xirxir meesha kala soco marka waxa is leedahay shaqooyinka hadda aan sameeyo kale la yasaay one of the best paying jobs ay noqotay ani maanta hadda laguma karo 2017 2018 mushaarkan qaadanayo hay'adda ku noqo hadii lido I'm not interested because naftayda waan kaafiyay alxamdulillah 150 gabdhood ka badan way ugu hoos nool yihiin 150 qoys ka badan bay ugu hoos nool oo ka ciishay meeshii marka waad dareemi kartaa shaqadii la yasaay waxaan xasuustaa hadda ka hor baa 2022 mar baan siyaasadda hunguriga yara galay marka siyaasadana xoogoo dadka xoogoo wax yara barteen extra failures badan ay ku jiraan ba waxay isku maleeyeen ayaga joogaan dan markii la weydiiyay maxaa qabataa I would proudly say I'm salon business aan ku jiraa salon owner baa marka sax la mama salon marka some people may take it as an offense ana laakiin waxay ahayd waxaan ku faano because shaqadeedii magaca maanta sameystay maxay ii sameeyay shaqadeedii queendom hada maanta la hado boqolkiiba qof aan garan sideeta magaalada way ka sii magacaas maxay ii sameeyay waa business marka maybe someone might see it as a low value laakiin ani muxuu yahay inaan degree hadduu iyo qiimo leeyahay uu yaala asoo laba xabo guriga ugu jira maanta haddaan kaas ku shaqo gali lahaa saa markii hore ugu shaqaynayo oon kusii deganaan lahaa magacaan sameeyay ma sameyn lahayn marka caqabadaha sameynoo kale aan la kulanoo kale waxay ka mid tahay business shaqadaadii oo laga yaabo in laga soo landho low value waaye wax kaloo samaysan ma garan weysay wax kaloo yeesho ma yani why don't you try another option professional ma loo arko but it's 100% professional one because markaa shaqadan hayso hadda ani waxaa ii jooga dad HR oo hiring and firing sameeyo waxaa jooga finance xisaabada soo xiraayo dadkii gacanta ku shaqaynayo oo khibradii lahaa skills ka lahaa baa jooga marka it's a whole thing laakiin markii qof kor uu ka arko wuxuu yiri oh okay which is good walba salon ma warna cilaan la marnay mugtanaga dadka wajar ka imaado qaybtiyo gaarisna ku dar salon hadii maqlaan ina shaqo kale laga qabto u maleeno waxa maleena on cilaan la saaray hadda xarunta maxaa u maleyn lahayd qol yar oo meel ku yaala iyo inay tahay hal qol oo maartay oo bilcaanta intii lagu maartay fitsadaan wax loo jooreeyo taas ma garanay baa u maleynaysaa taas salon oo qana okay and I think after this interview tour ku siinaya saddexdeeda xarumood ku soo marinaa sax xarunteeda koowaad oo shirika bilcama qaawan kuma jiraan maya markaan isdhaxna way yaraadeen waan ku geeni kamarada ka fiirinayna and xarunta u shirika markaan bilaabayay waxaan ku bilaabay ground floor dabaqan qaatay oo ground floor giisa dhan qaatay sax I remember management company-ga markaan dhahay salona meesha ka sameyn rabaa qaarna intay fiiriyeen iska aamuseen qaarna waxay dhahay islaama ku xareen rabtaa waxa islaana ku xareen doonta inta ka keeni so the whole of ground floor that building laba dukaan markii laga reebo waa salonkeyga and last year part 1 first floor aan qaatay waan ku jibiyay same building no that's my first branch hoos intaan la gaarin because hoos waxay ahayd hallway ma garan karin intuu qol uu yahay laakiin kor maxay ahayd 4 qol iyo iskiyadooda 10 qol mata meeshaas oo times 2 that's 4 SQ that's 10 right iyo fadhiyadoodii jikadoodii washroomskoodii first floor bas ay intaay for the first branch the second branch 12th street aan ka furay first floor dabaqan ka qaatay the whole of first floor except a very tiny area waxaa ku soo hartay qaybta Kilimani compound albaabkiisa xiran yahay 10 bedrooms 4 SQs meel kale oo ku dardaray yani more than waxaan dhihi karaa 12 13 bedrooms Kilimani kaliya
so you can guess how complex this kind of business is. intuu leeyahay baaxadiisa kuwa gaarsa u barnaa mutu meeshan waa paradise paradise yes kuwaas u barnaa halka qolka daaha maar kuweena miskiin marka koriska dabaasha daaha ay marada soo qabta gabadha kaas u barnaa ana ligu soo koriyay kaasoo kale ha hooyadii waxay ku lahaan jirtay baata dabaq la dhaho saaluna bas ku yaalaan qolqola loo kiraysan jiray so second floor bay qolkoo yar ku leeyahay laakiin wuu barakeysnaa anaga fiiskeenu bixinayay cuntadeena nolosheena dhan u kaafinay marka alxamdulilah hadda laakiin it's different hooyadii si ugu shaqaysanaysa 1999 2000 is totally different from the way I'm doing now because anisa u sameynaa hadda waxaa waay mo professional level ani kama shaqeeyo dad baan empower gareeyo dad baan ka shaqaysto ani waxayga waxaa waaye inaan supervise gareeyo korle inaan ka ilaaliyo wixii qaldan inkastoo customer ka yaagana social media handles anaa haysto just to be in touch with the clients maadaama meel walba aan joogi karin inbox qofkii soo gala chances in waan helo waa very high hadduu helin hadhow qofka lagula hadlo gadaal waan ka arki karaa ما شاء الله مدام هذا هذا بقول لي كنتون باقي شقيسو أو 40% الصوماليين in the next 1 month لما على جاي لو بقول كورينا ودا فان because كلماني full hiring ما سميني ولي I'm still hiring recruitment سمينا هاي 200 كيف فكرت ولي إنها college of beauty أفرط واسميها واسميها yes أو training in 2022 over 100 girls have graduate career makeup school keena and guest of honor waxaan u ahaa governorka magaalada governor Sakaja iyo few other leaders hadda Kilimani markaan furaayo over 100 girls ay graduate kareenayo makeup marka in the future because now we only train makeup students yeah in the future inaan ku darno other services waa jecelnahay hadday timaha noqoto because there's a high demand haddana loo soo weydiiyaa tima dhisida tima daweynta tima qurxinta inaan ku daro badan tahay within the year haddii la dhaho maqaarka inkastoo maqaarkay u baahan tahay professionals but I have professionals waxaan haystaa estheticians waxaan haystaa certified nurses who can equally serve as lecturers for those colleges already waan barnaa but I'm planning to diversify yes at a fee تفي how long قاعدين كرتا قفكي ما maybe نفير سنة أو ربع إنه وبرتا beauty سالونا عندنا beauty course هذا specifically we only train makeup students بس نقبلنا it's a course of 10 weeks and we charge 10 weeks and we charge 60,000 Kenya shilling for the whole 10 weeks for the 10 weeks theory then you start practicals on your face along the way models lagu introduce kareyna intaadan banaanka lagu soo deyno shaqada gelin 1 month dada u marinay meesha dhexdeeda okay then we give certificates as well certified waxaan bixinaa certificates amazing so makeup ka mooy laakiin there will be other courses other services wali maana bilaabin but we intend to diversify inshallah wili ganacsi aan ku jirnaa shaqo maqaalkan iska dayna for now mistakes along the business obviously there will be a lot of mistakes along the way what are some of the mistakes are there kulli wax waan ku soo bartay but I have done ABCD mistakes in the business wallahi horta ilaa maanta wax badan baan baranaya and I believe wax badan uu ii dhiman yahay laakiin mistakes intaan fiiriye aan wax ka soo bartay waxaa kamid ah saan ku sheegay locationadii horaan ku qaldameen ka soo guuray waxaa kamid ah serviceska aan sameynayno marka horeeto oo aan bilaabayo kaleete gabdhaha waxaan islahaa 1 iyo 2 iyo 3 will be enough waa isku yareeyay but by the time aan fahmayay inaan meel weyn waa haystay diversify gareyn karo I believe in qasaaro badan gale maalinkan furay 6 shaqaale ku bilaabaya haddaan 30 qori lahaa I had the space so faa'iido badan aan heli lahaa laakiin ma fahansaneen waa cabsi ay ugu jirtay it was a new business I didn't know what I was going to expect markaa islaa bal tijaabi labada lugood meesha hala gelin hashoo ku tijaabi hadday shaqaystaan kale ka soo dabageli marka taasna kamid ay tahay wax badan baan baranaya ilaa hadda baranaya waxaa waaye continuous what are some of the critics dadka yarahaan Queendom like do you have critics obviously in business there must be yes a lot of critics wallahi rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo diintan macaan keenay baa la daliili jiray asagoo diintan macaan waagaas wado naftiisa
watii la dili gaaray dhiigga madaxiis ka bilowda lugta ku gaaray magaalo ka guur magaalo kale guur intaas maxaa lagu haystay waxaa wada waxeeni maaha diinta uu yeesheen maaha soo markaa wax cusuban wadato of course waxaa helaysaa dad ku dhiirigeliyo dad garab ku siiyo iyo dad ku criticize gareeyo and in business labadaba waa u baahantay middaa ka maaranto ma laha waxyaabahan hadda lagu criticize gareeya saa isleeyahay waxaa kamid ah I'm not in touch with my clients directly because shaqadii way ballaaratay waxaa laga yaabaa awal my first branch intaan dhex fariisto casarkii shaah ku dhex cabo clientska at least kuwa markaas jooga is aragno la sheekaysto isbarano nambaro kala qaadano la sheekaysto but now it's different saddex xarumoodaa meesha ku taalo ilmo yaryar baan haystaa hooyo ahay xid baa inaan dhaqa iga sugaysaa marka wixii waa lagu adagta in laisku keeno marka taajkaas aan la lahaa clientkii waxaa ugu yaraaday I think criticska badan oo hadda ka helay ka mid tahay waxyaabaha kale oo social media aan ku arko marmarka qaara waxay tahay waxaa lagu dhahayaa hadda ka hor maraa jiro clip aan ka soo hadlay businesska markuu ballaarto wuxuu yeelanaa cadow badan cadowgii some of them waxay sameynayaan narratives qaldan dhaliil hadda ka hor la ii soo jeediyay some months ago waxay ahayd markaad hayargaraynayso waxaa ku hayargaraysaa qabiil dartiis dadka when the reality it's different skills iyo qabiil isku meel ma galaan qofka markuu kuu soo doontay shaqada waxaa leedahay interview gal إعلان ما مرسها إعلان كامري عرقني ميكا ما مرسها قبل إنه ميكا كارقني if it's okay perfect قفك شغلي واسيني دي ديسابك هدينا أوكي هين زاد جناعة كوجرت مش ها وتجي مركا قف كاس مركي شغلي آسيسو واليس وريساني فميلا لنقوني واليس رحكري هذا إسكو قويس نقطان well and good هذا إسكو نقون إسكو قويس نقون ويسانه وحكي وين بايدن دحياله ونقول بابيدن دحياله بدل العق كويش يابته هندو وحكي له إسكو قفيسين ماشي ما ياله marka dhaliish kaloo la soo jeeday waxay inaan recruitment ka sameeyno qabiil dartiis which is not true haddii xataa gabdhahayga la sii dhex galo inta isku qoyskanahay wallahi waa fara ku tiris but sometimes I feel proud waxaan dhahaa inta ay badnaan lahaayeen haba yaraadaanba because hadhow adoo skillskii ku qaadataa waxaa lagu dhihi dadkaagiba meesha ka soo buuxisay that is another thing oo lagu criticize karayo the third one waxaan dhihi karaa waxaa waaye social media influencers businesska markaan bilaabayay gabdho badan horta baahi baa jirtay gaab baa jiray saaluun weyn oo landa one roof oo wax kasta laga helaayo ma jirin marka opportunitygaas baa ilaahay u aadiyay waan ka faa'iidaystay waxay marka noqotay social media influencerska inay ayaga ii baahdaan ayay soo raadsadaan because they needed the services marka anigana am the business owner millions oo lacaga meeshaas kaliya marka social media influencerska ayagana way ii baahan yihiin anigana waa u baahanahay honestly hal muuqaal oo ka duubato qof caan ka ah baraha bulshada meel fog buu gaaray and that's marketing for my business laakiin qof iska regular marka intuu ku imaado aad ka duubato muuqaal waxa laga yaabaa viewski inuu hoos aado waxa laga yaabaa qofkaas normalka ah oo caanka ahayn inuu qofkan ka qurux badan yahay ka soo jiidasho badan yahay ka labis qurxoon yahay but because qofkan brand waay already they rebranded themselves magaciisiba wuxuu ku keenaya new clients wuxuu ku keenaya new followers breakthrough buu ku sii siinaya marka waxaa lagu dhahay dadka caanka baa soo dhawaysiin that's not the case saalunadayda haddaad tagto oo horumarta kulliga shariika farxaan dhowr jeer noogu imaaday it's fully packed capacities at one go waxaa laga yaabaa inuu noqdo over 100 clients out of the 100 clients laba caan bes laga yaabaa maalinkaas inay joogto mise hal clientskii ma ogola in la duubto intaa duubato ma soo dhigan kartid marka qofka caankane raali inuu soo ku yahay intaa duubata inuu ku xayisiyo dhaho saalunka kaliya magaalada jira ee wadanka waaba kanba and I need that advertisement anuu u baahanahay anigana wax bay ii tari businesskina wax bay u tari marka dadka waxaan dhihi lahaa caanka idinka ma fiicno laakiin maxaa la dhahayaa business we need them it's part of the marketing marka aragtiin caan badan oo soo gelinayno intaan caanka ahna meesha joogtaa ka badan because boqolaal qof la saafgareeyay laba bas caane boqolaalka kale raali kama inaan duubto halka qof oo caanka labada qof oo caanka raali bay ka yihiin intaan duubta inaan soo dhigto and that's part of business marka waxaa idin dhihi lahaa taas ha lagu qaato daliilyaa laga dhigin I'm just in business doing business caanka laftirkooda waxaan wadan karnaa wadanaa waxaan wadan karinne dee labada isfahmi weysaaba kala tagta moogtahay marka daliisha kaleetana taas waaye maybe idinka ii sheegay idinka banaanka joogtiin daliil kale haddii jirto let me address it hadda chancekiiba haysta iyo platformkii farxaan la weydiina farxaan daliil kale ma jirta
هم مغلنا ولي كان هم مغلي tiimkiina gabar ku soo daray gabar haday ku jirta dhaliisha iyada hadii sheegi lahayd moogta بص فاطمة Soomaalida waxa lagu yaqaanaa inay yihiin mankisi mankidu waxay maanta daxanja kabta soo dhigato faadimo maxay subinaysaa saloon guriga kugu dhigan ama kaasa ka soo horjeedo ee ka subistaa weli ma arkay miya wax oo Soomaalida weli maxay jecel inay duplicate garaan ideas weli ma arkay miya qof queendom kala soo saara wallahi horta queendom is unique and there can only be one queendom hadday si kasta duplicate u sameynay soo saaraan they can never and as they say the original is always better than a copy marka that aside maalin walba ay dhacdaa hadda ka hor markaan furay 2020 queendom mushrika way saacadii waa taqaanaa laba wax bay iga waanisay waxay ugu tiri businesskan waa soo gashay ka shaqeyso waxa meel ka dhigan kartana ka dhigo but it's not long term أنا waxaan ku dhahay I intend to make it long term saas haday tahay tiri laba iga qor biyaha maanta aad haysato oo ceelka guriga uu qalali doona in the next 5 years guriga because every building ceel baa lagu isqodaya ceel kasta markii la qodo biyihii way yaraanayaan hadhow maxay noqon doontaa inaa booyada shubatiin number 1 number 2 waxay tiri dadka waxay ogaayeen saaluno yaryar oo qolqol leh you have given them the idea in aad hal mar whole inta qaadato saalun ka dhigi karto waxa ogaataa dabaq kasto la dhiso hoostiis in saalun laga dhigo you know she was very accurate fast forward 2026 area hada fiirso in saalun ku taalo prediction it came to pass I think mida opposite ku taalo shirka opposite ka midan ku arkay mida laga furay waa idin ground floor dhan baarkay way fureen mida laga furay waxa laga furay I think was it last year saaluna badan la furay and hala furo laakiin samirkii Soomaalida ma laha waxa arkaysaa just because qofkan saalunu furtay lacag uu sameynaya ayagoo challenges ka ogeen in envy intuu galo same business sameeyaan laakiin behind the scenes they don't know what we go through hadda meelaha agteeda laga furo kala meel waxa arkaysaa 3-4 times different owners qaateen magaciisa la bedeli ownership ka bedelmay magaciisa why because there's no patience number 2 markii hore oo la furaayay qofkan uma furanin inuu lacag badan ka sameeyo uma furin meesha inuu risaaqad fiican intuu ka sameeyo yani meel isaga soo saaro wuxuu u furay someone is doing it you can do it as well which is very wrong marka business sameynayso you need to have the passion for it absolutely haddaadan passion u haynin it's not your thing just go home iska xir iska tag maanta waxaa jira businessyo badan oo very booming thriving ani laakiin ma ku fikir inaan sameeyo why because it's not my passion you specialize in that beauty-ga ani marka aan soo galaayo waxaan usoo galay it was my passion waan jeclahay ma ahane hadda waxaa laga yaabaa gurigayga markaan ka tago midigii bidix social life kale ma qabin even before I opened Queendom Saloon intaan tagay inaan ka soo noqda laga yaabaa dantayda the only place aan tagay inay saloon noqoto marka I had that passion for the business that's why maybe ilaahay igu barakeeyey that's why it's becoming bigger every day alxamdulillah marka saloonada la furfuraayo way jiraan mar walbaa la furaa every other month waan aragnaa social media hadda ku jirnaa qaarkood they go to the extra mile oo shaqaalaha intii lasoo baca lagaa shukaansado lagaa wato qaarkood they try to create unnecessary beef social media lagaaga soo dhaga hadli directly wixii la sheegayo waxaa arkibo magacii unbaa ka maqan laakiin dhaga hadalka toos adiga unba ku tilmaamaya marka you just need to be smart sometimes waxaa rabaa boqol ma dhihi kartid bini'aadan tahay because dareenaa leedahay danqashaa qabtaa marmar waa hadli laakiin markay dhacda taasoo kale inaa aragto qof sin business soo galayo cusub inuu ku provoke gareynayo waxaa rabaa inaad dib u degi karto iscelin karto because qofkan marka uu kugu soo dhaga hadlo mise wax kaa soo sheego mise businesskaaga damco inuu attention kala soo wareego marka u jawaabto you are giving them the platform customerkaagi wuxuu dhahaa oh Fatima is fighting with so and so let me check qofkaas wuxuu yahay customerkaaga ay rabaan inay tagaana meesha u diray page-kiisa loo tagay meesha u diray may businesskiiba u diray they go and see the services they offering haday ka fiican yihiin you have lost the customer so how jawaabin hadayna ka fiicnaan laga ku soo noqonayo marka lama jawaabo businesses every day man doonaan waa la furi but the reality is as I said the original is always better than the guy with the passion always wins exactly what maxaa la dhahaa
future plans? What's your future plans for Queendom? In the next maybe 5 years, what do you want to see? In the next 5 years, we want to go beyond Kenya. We want to go beyond Nairobi, most likely in the other major cities of Kenya, and beyond Kenya. Maybe Somalia, maybe Somaliland, maybe Rwanda and Uganda. Can you franchise? Maybe go for Somaliland jooga oo Queendom furan rabo. Maya. Boqol jeer ali wadaya. Bas maqaayada Nairobi laga wada arkay oo Muqdisho meelaha laga furay. Every time, or I can't say every time, but every other time, oo maaragtay aan branch cusub sameynayo, people approach me. Xamar dad baa iga soo approach gareeyay magacana sii faa'iido ku siinayna intaasoo percentage aan ku ogolnahay just aan ku shaqaysano, but that's not what I want. Ani waxaan rabaa Queendom markay tagto Faaduma tagta in la dhaho. Not franchise. In franchise na sameey ma rabo. Magacayga anina isla soconaan rabaa wadan kastoo magacaas lagu arko anigana waan joogaa. Laakiin inaan beyond Kenya tagno inshallah it's the plan. Inshallah. Qofkii maanta dumar gabdho badan hadda qurbaha ka soo noqonaya wadanku soo noqonaya they want to do start business. Su'aasha waa horta wadanka Kenya hadda for you to open a business maanta soo abta Ingiriisiga maanta ka badan waan la yaabanay. I think I'm influencing you. Dibka ani waa u maleena. Kuma hal jir Ingiriisi maanta Ingiriisiga badan. Qofkii maanta doonaya inuu ganacsi hal abuur ama ganacsi ka soo bisto Nairobi may fududahay in terms of registration paperwork iyo dawladda maartay standards waxay rabaan may fududahay ama it's okay qofkii maanta rabo inuu ganacsi furto for example saloon no furto for example wala horta in hadda mise markii hore hadda mise markii hore hadda right now 2026 now kulli businesses ka Kenya they are at their lowest kulli waa aragtay I think there's no enough cash flow sida hore wadanka dhaqaale ma u yaalamiya ma business ka Soomaalida kaliya I don't know lakin sidii hore business ka hadda maaha and paperwork markii la dhaho and I think wadamada ugu sahlan baan ku jirnaa business markuu qof foreign intuu imaado rabo inuu furto it's like 100% conducive in laga furto and maybe challenge kale oo meesha ka furanayso what to expect competition ka areadaas challenges kale inay iska imaadaan laakiin dhinaca dawladda I think it's conducive. Maybe the only challenge now is there's no enough cash flow. Businesses kind of they are at their lowest. When I tell you that, I'm telling you from experience. 2019 illa hadan actively wujira business. Sanadkii la soo dhaafo 2025 iyo 2026 sidoo yahay wali ma soo marin wadankan. And you can see it even in Isli. Sidoo hore ma that's why warkayso business badan oo la xiraayo. Hatta kuwa waaweyn oo beyond Isli la xiraayaan aragnay. Why? Because sidoo hore ma wadanka. Hopefully 2026 and 2027 things will be different. gabdho badan waxaa jira oo form 4 soo bogay qaar jaamacad soo bogay aniga mar baan sheegay degree is a paper It's just a paper. gabdhaas leeyahay nin walba guriga u taala laakiin banaanka waxaa lagu joogaa xirfad iyo maxaad baran kartaa gabdhahan qad gaar waxaan garanaa abti oo ahay inta ka salaamaya Soomaaliya lawyer waana lawyer caadi oo loo fahmi qabtaa waxay furatay meel yar iska asylum iyo furatay oo waxa lagu gudbaa asylum something san Australian thing waana lawyer ka war so she started a business. she started a business Okay. so gabdhahan hadda oo soo kacayo hadda jaamacadaha dhiganaya ama kuwa form 4 soo bogay maxaa kula darmeed oo hadda shahaadooyin waxay raadinayaan wala horta in shahaado waa laga maarmaan sax cilmigana waxaa lagu dhahay ilaa iyo intaad ka doonan karto ka doono raadso kordhiso kororso mar walba laakiin don't limit yourself to that paper degree is just a paper you've earned it meel dhigo wixii kale ood ku raadsan karto nolol maalmeedkaaga ha ka xishoonin ku raadso business hadaa rabta inaad bilowdo go for it whether it's in line with your degree or not go for it hadduu kuu shaqeeyo okay hadduu kuu shaqeyn waa it's an experience it's never a failure waxaa kuu soo hartay waxbarashadaad baratay marna khasaare ma noqoto when the right time comes ani waxaa aaminsanahay warqadda ii taalo maanta waxba ii haynin beri inay waxay tari doonto maalin u baxsan maalinna u baxsan doona aaminsanahay marka iskuulkiina ha ka harina wax barta go get your degree go get your masters go for the PhD if you can inshallah I'm planning to do that the last 2 years waxaan register gareeyay masters University of Nairobi waan tagi lahaa
because beesaan bartay lacag leefiijinaya I keep on deferring I don't know why marka waxaan idin dhihi lahaa mas-uuliyadahana way badan yihiin hooyaa la noqoni marwaa la noqoni sidii hore oo maxaa la dhahayay intaad yar tahay oo u firfircoon tahay muu firfircoonaanaysid intaa yar tahay go get your degree hustle hard adoo income-kaaga kusoo galaya guurso qofkii maanta saloon furan rabo waxaa looga baahan yahay like let's say Nairobi ro inuu gabar yar oo dhaqaale yar capital yar haysato oo rabta maanta inay kuley kingdom I know is investment badan iyo what is the bare minimum ay haysan karto lacag ahaan ama maxay ku bilaabi kartaa maxaa ku advice garan maybe someone has a passion for saloon lacag yarna uu haystaa inuu furto nagu rabaa horta ma kula talin lahayd in horta saloon furtaan number 1 number 2 intay ka bilaabi karaan ayaga naftooda inay soo bartaan miyaa wallaahi horta saloonka sida wax loo mariyo laba kala qaadaynaa qof rabo inuu saloonka as an investment like me u furto business ahaan oo intuu dad skills kala shaqaalaysiiyo ka shaqaysta rabo oo laakiin personally at personal level shaqada isaga qabanaynin taas waa koow taas ma sahlana waxay u baahan tahay lacag badan minimum 5 million meel weyn haddaa furayso inaa haysato oo meesha ku qurxiso islii kirooyinkeeda waa qaali meelaha qaarkood dadka sanad ay ka shubtaan I remember markaan u shirika furaayay 1 year in advance aa layga shubtay marka inaad lacagteeda haysato on top of that waxaa loo baahan yahay 6 months qarashkii saloonkaas geli lahaa inuu kuu yaalo because ma ogid wixii kasoo bixi lahaa lacag ma kaaga soo bixi doonta lacag ma ku celin doonta you don't know marka si aadan hadhowto after 2-3 months disappointed intaa u noqoto u xirin qarashkaa gelin lahayd sii hayso u samir dabaradeeg samee taas waa qofka as an investment u furanayo waxaa kuu soo hartay gabadha yarta oo lacagna haysanin maybe wax yar haysato oo rabta inay bilowdo skillkii baa baran kartaa you can go and maybe learn how to do makeup styling henna if possible or maybe specialize in one let's say makeup aku specialize garayse makeup studio yaraa samaysane waa yara qurxisane 2 people meel ku saaf garan karto iyo waiting area maxaa la dhahayay marketing badan social media dadka way underestimate gareeyaan it's a big thing it's the biggest market now social media haaga samayso go do your work market it and all the best waa gaaraysaa waxay weydiisay inaan dhihi lahaa dadka saloon ha furtaan if you have the passion for it go for it haddaad rabto inaad saloon furto oo jeceshahay ha ka labalabeynin because waxaad jeceshahay marnaba kama caajisaysid mar walba even when you're sick when you're not feeling well waxaad helaysaa moraalkii aad kusii socon lahayd oo ku shaqaysan lahayd masha Allah su'aashan waxaa la rabay kol hore inaan ku weydiiyo bilowgii kulay producer garan soo yeeli doona waxaa kuugu dheli horta inaad saloon business out of businesses farada badnaa adigoo cabaayadii wax walba gadi karta why saloon walaa horta cabaayada waan gadi jiray welina waan gadaa xarumahayga tan u shirika dukaana ku dhex yaala tan kilimaanina wuu ku dhex yaalaa labis oo dhan ayaa yaalo cabaayad kareen literally everything unsi barfuun adoo waxaa imaanay baati qabto adoo cabaayad qabto labisana ka bixi horey intaan saloonka samaynin dukaamo cabaayadan qabi jiray oo ku yaala Madiina Mall marka ay habindaa laakiin waxa igu dhaliyay inaan saloon furto baahida jirta arkay xaafadaha islii ka baxsan dadka degan hadda islii meelaha ka baxsan waa laga furfuro saloonee markaan cilaanka soo doonano waxaa laga yaabaa saloon yar oo celiir intaa imaato musqul fiican lahayn meel lagu weysaysta lahayn meel lagu tukada lahayn like barely meeshaad fadhiisanaysa basaaba dhib ku helaysaaba marka gaabkaasaa jiray baahidaasaa jirtay anoo baahidaas fiirinayo business minded oo isleeyahay ka faa'iidayso this is a field lagaaga baahan yahay aan horta soo galay on top of that ani saloon waa lagu soo koriyey dee dheeftiisana waan hore usoo dhadhamiyaa u malen marka waan sii daba socday waa markaas aan bilaaba ma ahayn masha Allah maanta hadduu farxaan aroos galay asiga gabadhiis maxaa loo qaban dee window imaadaan waxay ka imaadeen bulagame labadoo bulagame gaari maan u dirnaa mase basaan soo saarnaa Nairobi imaadeen Nairobi joogaan window imaanaya maxaa loo qaban karaa aroosay gal rabaan farxaan macawistiisu qabaa gabadhaas diraca gabsaar ay qabtaan maxaa loo qaban karaa okay
labaa loo kala qaaday arooska dad waxaa jiro iska like simplest way u samaysto gabadha way imaani hal outfit ay qaadani ayadii saaxiibkeed guriga iska galayaan that's it maybe sawiraa la qaadanay and that's it outfitka ma soo celinaya ma way soo celinayaan karawa hadday rabaanna way gadan karaan midka kale wuxuu yahay dadka hoolka kiraysta sida hadda loo badan yahay hoolaa la kirayni gabadha marka she plans inay different outfits xirato maybe 2 3 4 outfits inay xirato maxaa la dhahayaa wiilkana laga yaabo inuu laba outfit wiilasha inta badan laba ka badan ma xirtaan wiilasha outfit ma haysin 2 waa haysin outfits ha inay xirtaan marka dharkoodii bay helayaan dirac hadduu noqdo oo gabadha xiranayso suudka ragga waxaan la collaborate garayaa wiil la dhaho Wiz Mario oo sameeyo suudska aroosada asaga ayuu sameeyo hiddii dhaqanka gabadha markay xirato wiilkan wuxuu xiran karaa dress oo sidii hiddii dhaqanka u samaysan shaar iyo surwaal oo maradii xoogo ku yari jiro sax marka hiddii dhaqankii buu helay suudkii buu helay gabadha diracii helay hiddii dhaqankii buu helay shaashkii bay helay gownkii caddaa oo hadhowto keegii ay ku jaraan lahaayeen like the old traditional gown ayadana way heleen marka intaas waxaa usii dheer wiilasha jirka dhan mau dhaqno gacmaha wiilasha waxaan u sameynaa pedicure manicure weji dhaq timo jaro صح yeah and then intaas dhan markii lagu sameeyo gabadhaada hadday kugu dahdo oo lacala aad rabto inaad sugto VIP executive waxaan haysanaa waiting room TV-gaaga baa kugu jiro meeshaas ku sugaya gabadhaada intay baabuurta kaaga imaanayso gabadha iyada waxaa loo sameynayaa jir dhaq waxaa loo sameynayaa xilaan waxaa loo sameynayaa makeup timihii dharkii afartii outfit like everything ayadoo ay ku soo gelaysaa iska normal ayadoo Soomaali inay tahay in kale tashay galaayo jini ma ayadoo xural cayn u eg beerada ka baxaysaa farxaan fariin u soo qoraya wale qof bulagin ki imaaday waxa ma far garan kara wal pricing noo sheeg wala horta marketka marka ka fariintiis waa haya marketka marka fiiriso way very affordable services ka bixina marka la fiiriyo iyo inta qiimaha dadka qaar naga qaalisan way jiraan kuwa badan oo naga raqiisan way jiraan but you know waxa fiirinay value for your money qiimaha lacagta bixinayso waxa u qalma ma helaysaa marka bulageen hadee give us figures wadaan xanujin sideen regaris let's say saddex gabadha saddex outfit wiilkana laba outfit adiga waa saan ku sheey macwiis uu leeyahay ee diracay soo dhimatay the whole process ila dharkan soo celin marna dharkan qaadan aan dharka soo celinayna meeqan ugu filan saddex outfit intaan gaarin one outfit waxaan ugu yar 70,000 for the lady bobola games ka joog for the lady 70,000 four outfits oo kugu jiro wiilka it goes up to 140,000 salu kuma jiro cilaankii makeup-kii ku jiraan cilaanka kugu jiro makeup-ka kugu jiro timiya kugu jiro and facials-ka kugu jiro jir dhaqiya kugu like literally everything adoo labista oo baxday 70,000 muxume intaas waxa kugu sii dheer gabarkaaba bedelayso holkaada u socoto oo dharka ku toosinayso makeup-ka haduu halaaba ka hagaajinayso timaha hadday xogo meel ka halaabin toosinayso that's one outfit for the one outfit for the four outfits one outfit was 70 saddex outfit times it goes for 70 90 110 120 140 depends okay makeup-kii waxaan qurxinta hal marko kulli way kugu jiraan package hal marko macnaha waa dharku bas ka bedel dharka laakiin makeup-kaada la tagays ma soo noqonayso ninkana laakiin gabadha kula joogto holka gabadha kula joogto for the person wearing four outfits gabadha ku taagan makeup-kii ka saxi timaha saxi dharkii naftirkiisa ka bedeli ninka just general grooming aan sameynayna pedicure manicure facials timo jaristi makeup ma loo marin karay hadda maalmahan dacaayadana way iska badan tahay ma laakiin dacaayada iska badan anaga hadda kuwa yar u marina waa aragnay laakiin ma ogola inaan duubano hatta facialska markaan sameynayna markaan dhahna abo waa idin duubano waxay leeyihiin maya hadda waana lagu soo shidanay social media marka xoogoo dhaqankeena dadka in laga yara dhaqana way u baahanta taas ariyaha waxaa ku cidiyaha loo jaro maartay lugaha loo dhaqaar gacmaha dhaqistooda cidii jirkooda manicure la dhahaa raga iyo dumarka lugahana pedicure inaa Soomaali ku sheeg luga dhaqi waa pedicure gacmo dhaqi waa manicure lugaha maxaa laga dhaqayaa gacmaha ilaahay baan leeyahay wax badan abti
waxa laga yaabaa jilifti oo wajiga sawd ka limaata inay weli kugu taalo hay ku taalo weysada ku filan wala jafi weysada ku filan waxaas may marmar weyse ka badan loo baahan yahay that's why aan guryaha dhaladeedan kugu furnay inta lagu hayno waan ku istaagnaa inaga tahay intuuna ka shaqeeyo waxaan rabnaa mentality-ga wajiga bas ay hagaajinaysiin inay in ka bedelno ilaan gabdhaha madaxa ilaa cirba iska hagaajina idinkana waa inay is hagaajisiin intaad furtay salmiyaasha inta aroosoo soo maray meesha ma qiyaasi kartaa walaahi haddaan dhaho on average weekdays waxaa laga yaabaa 4 brides inay soo marto 4 to 5 brides weekdays weekend sabti xad waxaa laga yaabaa between 4 to 10 inay soo marto so weekly iskaba dheeba 10 brides monthly is almost 50 so 50 brides haddii bishii noqoto sanadkii waa almost 600 brides toddobada sano furan haddii lagu dhuftana waa kuumay ka badantay qoysaskan dhisna way badan yihiin maanta waxaa u malayn haddaan MCO soo istaagaan dhakaalaya intaa idin dhisay soo noqdo bal kujeni murudisha mkono inaan kuura badan heli karaan aaminsanahay hadii dhibka jira waxaa weeye hadda ka horaa kaftan waytan nin baa aroos gelay gabdhihii la socday wixii aa usoo maristeen inta u fiiri tiisa kuwa kalaa ka qorxanba saa u fiirowda show maanta show khalad baan subisho waan fududaaday show waxay gabadh waa noo soo qurxinaysiin oo balaayo kasoo dhigaysiin laakiin marka loo qabay teeda kusoo noqonaysa hore maxay noo tartay weel horta maalinka arooska sabir leh bismiya maalinka arooska waa it's a special occasion waa maalin farxad ah muuqaal ka duubani sawir la galgali waxa laga yaabaa inaad gabar kale guursanin cimrigaaga ilmo intay ku dhasho ilmo kale la sii dhalo ayay awood sii noqoteen so memory-gaas wax loo dhiga lahayn memories-kaas sameyseen wax loo dhiga ma laha hadday kugu soo noqoto siday ahaan jirtay haddii gabartan ayadoo makeup marsaneen baa shukaansatay sooma waa sida la rabay inay sideeda kugu soo noqoto bariyahan hata sala soo daawac makeup qaban miya bas first date mtawapeleka swimming pool oge bariyahan maxaa la hata ana mar lagu dhahay hadda idinka biyo jira hata biyo dhaqayna idinka hata maalmaha waa in swimming pool ka lingeeyo because nimankii bidaarta lahaa baruka soo baxda lagu qarinayo bahash hoos u dhigan arrimahaas first date waxaa hadda kadib meel biyo in la isgeeyo xagga swimming pool ka noqoto first date فاطمة علي فاطمة كويندوم هذا ما سنتكتي for the wisdom إلهها كوبركة business كا هراي وصعب كل قبل بدنه كدابنا يان ومارتي كتاجرية وأنا one of the fine days ربنا إني هيرك سوق أنا ويشرن وحي قبره كوي صوب عام وكوي ماذا كلي كعنتا سو مران you give them mentorship إن شاء الله أنت سامكسو قبلنا برنامج كم أنت أنت كسو سيدان تونا قيبة كلا وامتحانها انت سنقول تجينا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.